wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in qarax culus uu caawa ka dhacay magaalada. wararka ayaa sheegaya in qarax lagu dilay xildhibaanad Aamina Moxamed Cabdi oo ka tirsanayd golaha shacabka Soomaaliya ee muddaxileedkiisu dhammaaday. qarax ayaa lala beegsaday gudaha xerada Lamagalaay oo ah goobta doorashada lagu qabto. xildhibaanad Aamina ayaa ku jirtay gudaha xarunta marka uu qarax dhacayay. waxaa la aaminsan yahay in qaraxa gudaha lagu sii diyaariyey. qarax kale ayaa isna dhacay wax yar kadib oo ka dhacay meel fariisin u ahayd ciidamada dawladda Soomaaliya. rasaas xoog leh ayaa dhacaysa oo magaalada oo dhan laga maqlayaa. ma cadda heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha rasmiga ee ka dhashay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa yidhi waxaan erayada ugu adag ku cambaaraynaynaa falkii argagixiso ee caawa lala beegsaday. allah u naxariistay xildhibaanad Aamina Moxamed Cabdi oo lagu dilay magaalada Beledweyne. waxaan murugada la qaybsanayaa uguna tacsiyadeynayaa qoyskeedii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee geerida xildhibaanad Aamina. waxaan farayaa hay-adaha amniga ee ku shaqada leh inay baaritaan waafi ah ku sameeyaan sidii uu u dhacay falkan wuxshnimada leh ee lagu dilay xildhibaanada. xildhibaanad Aamina oo tusaale u ahayd matalaadda shacabka iyo baadidoonka cadaaladda waxay dadkeeda iyo dalkeeda ugu soo shaqaysay sida ugu wanaagsan ee karaankeeda ah. waxaan eebbe ugu baryayaa inuu jannadii firdowso ugu deeqo ehelkeeda iyo ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan uu ka siiyo.